السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. adduunku wuxuu ku soo kacay sanadkii cusbaa taariikhdu maalintii ahayd 3 bishii koobaad oo maalin sabtiya 2026 dhacdo aad u cajiiba oo dhacday taas oo ah ina madaxweynaha dalka Venezuela Nicolas Maduro isagii xaaskiisii ay Mareykanku kala dhaxbaxaan labada subaxnimo isagoo bajaamihiisii gashan taasna waxay ku dhacday ciidamada argagixisada la dagaalamtay ee Mareykanka tababarkoodu aad u sareeyo oo la yiraahdo Delta Force taasba dayuurado kaga soo degtay caasimada Venezuela Caracas intii markii hore raadaaradii wax sawiraysay wax qabanaysay oo inta la kharaabiyay ayaa hadhowtana hub la dhacay dalkii dayuurado fara badan ay dul duushay magaalada hadhowtana waxay ka soo degeen gurigiisa isagoo gurigaas guri aad u sareeyo security-giisu ahaa oo meel kasta ciidamo iyo kamarado ay yaalaan ay hadana Delta Force ay ka soo degtay gurigiisa ilaa inta lagu tagay qolka uu seexdo isagii gabadhiiso iyo koobajaamoodii ka Soomaaliga soo dhaxbaxay intaas oo dhan sheekadaas oo dhan may qaadan wax ka badan nus saac iyadoo operation-kan ama dhaqdhaqaaqan ay Mareykanku u bixiyeen magaca la yiraahdo Absolute Resolve af Carabigana amaliyada al-azm al-mutlaq waxaanu Mareykanku u sameeyay waxa la yiraahdaa imperialism waxa weeyaan ina dal kale la kontrolo ama la xukumo oo lagu dul imaado xagga sare taas oo noqon karto control iqtisaadiya control media control la xukumo culture-kiis ama xataa la xukumo luqadiisa Mareykanku imika waxaan uu sameeyay waxa weeyaan ciidamo yar ayuu u soo diray dalka Venezuela madaxweynaha baa laga dhaxbaxay gurigiisa xukunkiisa baa lagu riday dad iyagu ay diyaarsadeen oo iyaga la shaqeynaya oo iyaga la tacaawanaya ayaa kursiga la fadhiisinaya kuwaas ayaa hadhowtana la shaqeynaya dalka Mareykanka oo khayraadka iyo nimcadu Ilaahay siiyay petroolka dalka Venezuela qacanta ka saaraya Mareykanka haddaba waa maxay sababta ninkan Nicolas Maduro ay Mareykanku waxa ugu sameysay aad u fooshaxum ee xaq darrada Nicolas Maduro dadka aan garanayn marka hore waxa weeyaan madaxweynaha dalka Venezuela wuxuu xukumi jiray 12 sanadood ayuu xukmiga haystay ninkaas wuxuu ahaa saaxiibka Hugo Chavez waxa weeye madaxweynihii hore dalka Venezuela oo saaxiibkiisii ula soo ay soo wada halgameen isku fikir ay yihiin isku maskax labadaas oo Mareykanka xoog u necba oo ka soo horjooday siyaasadda Mareykanka kaas oo saameyn weyn ku yeeshay Nicolas Maduro madaxweynihii hore oo fikirkiisa uu cabsan yahay ayuu xukunkii imi Nicolas Maduro markii hore wuxuu ka shaqeyn jiray baslab uu ahaa bas buu gaxayn jiray taas oo ku tusaysa inuu dadka caamad ama shacabka uu dhex galay uu duruufahooda iyo dhibaatadooda si fiican u fahamsan yahay xukunka wuxuu qabsaday 2013 buu qabsaday intaas oo dhan wuxuu isku dayay inuu iqtisaadka iyo dhaqaalaha dalka uu hagaajiyo isagoo dalkii iqtisaadku uu xoog u xumo u burburo oo dadkuna xoog u daaleen u duruufasnaayeen taas ugu wacneed cunaqabateenka weyn uu Mareykanku ka hayay dalka Venezuela iyo petroolkiisa uu xadaayay iyo petroolkiisii uu xakameynayay oo in yar u ogolaa inuu iibiyo isagoo qasabna lagaga dhigay wax aan dollar ahayn inaan lagu iibinin petroolka 4 sanadood buu isku dayay Nicolas Maduro inuu hagaajiyo dhaqaalaha uu hagaajiyo markuu kari waayay ayaa khaladkii ugu weynaa ee Mareykanka ka xanaajiyay ayuu sameeyay 2017 ayuu go'aansaday inuu dal kasto petroolka Venezuela doonay inuu kaga iibiyo cumlada dalkaas markii dalku Japankii uu imi wuxuu ku yiri waxaan idinkaga iibinayaa yanka Yaabaniga China wuxuu ku yiri waxaan idinkaga iibinayaa yawaanka ruushkii wuxuu roobilka ruushka idinkaga iibinaya hindigii wuxuu ku yiri lacagtiina rubiyad ayaan idinkaga iibinaya taas ba xoog Mareykankii ugu xanaajisay wax kasta Mareykanku ogoli illa in la taabto dollarkiisa taas oo sharafta Mareykanka ah
madaxweyne Mareykanka ayaa xoog uga xanaaqay waxaas hadhowtan cunaqabateenkiiba xoog lagu badiyay dalka Venezuela ilaa intuu go'aan qaatay Mareykanku inaanay dooni quri aanay iman karin badda Venezuela aan laga iibsan karin petrol tatimaadana inuu gantaalo la dhacayo hadhowtan tuham badan baa lagu tuhmay Maduro oo la yiri inuu kokaayinka iyo mukhadaraadka uu sameeyo Mareykanka uu ka iibiyo keeno si kasto iminka Colombia waxay dalka kokaayinku ka imaado oo Venezuela kama imaado been badan iyo tuham badan oo mukhadaraadka ayaa lagu tuhmay madaxweynaha Venezuela si sabab u noqoto ina Venezuela madaxweynaheeda la rido oo la afduubay isaga gabadhiisa madaxweynaha Venezuela Maduro isaga gabadhiisa waa la afduubay oo dooni baa la saaray isagoo silsilada ku xiran oo Mareykanka la geeyay sida loo xukumo haddaba waa maxay sababta Trump uu doonayo dalka Venezuela oo waxan oo dhan uu sameeyay mu'aamaradan oo dhan dadku inta badan ma garanayaan Venezuela waxa lagu qiimeeyay inay tahay dalka ugu petrolka badan adduunka stored aan ilaahay ma kala soo saarin petrolkeed waxa lagu qiimeeyay inuu noqon karo 300 milyaar foosto بترول إنه يهي معني وحويهم بقول كي بس سجالي طبعا بترول كأدونك وصوصارة فنزويلا لقى صوصارة سكستو بترول كديو بترول أدقو أباهن قلب جارة أو لجو صفينا يو قالية قلب كان ذلك مريكان كهايستا وحيابا كده هنجري جلسي ترامب مدحوينها مريكان كا وحويان جاسكا انتظر لجو كري أما جاسكا ذلك وقفر بدن صوصار جاستا وحويان فنزويلا أدونكا وحكري أي فنزويلا أي ليه ذهب وبدن بالغ صوصارا dalka Venezuela taas oo gelinaysa kaalinta 8 adduunka deemanna way haysataa waxa soo waxa ka daran mowqaca ay ku taalo Venezuela iyadoo ku taala baxriga ama badda Caribbean-ka ku taala Trump wuxuu doonay inuu Colombia halka uu ka galo iyo dalka Panama uu qaato kanalka Panama waxweeyaan kanal isku xuraysa laba badweyne isku xuraysa oo dooniyuhu ay maraan oo taas oo lacag gaaraysa milyaaraad dollar sanad kasta oo Panama uu ka soo galo dhaqaale aad u sareeya oo dhaqaalahaas uu hungureynayo Trump خاصة إيمانك يدو مريكان كو رقالي دو حوق ودقي أو دين بدن لغولي هاي طبعا الدون كورن وودي دي وكسو هورتشيدا وحن أو سمية ترامب أو لغن حي أو لغي يابسن يهي حتى مريكان كو قديسة داد بدن باكا قيرين أو ديدسن وحن أو سمية يسوغو حتى كونغرسكي أنا أوغين أو قلاش آنو كقادن ترامب أيو كو رقاقي waxaan aad u fooshaxum dad kamida xisbiga dimuqraadiga sida oo matalaya Arizona Robert Galileo isagoo ka soo horjeeda xoog uga hadlay waxaan uu qabtay Trump hatta xisbigiisa jamhuuriga dad badan baa ka dhex qaylinay aan ogolayn waxaan uu sameeyay isagoo Trump uu adduunka ku leeyahay madaxweyne kasto adduunka jooga laguma qaadanayo nus saaca san kursiga uga ridno hadduu ka soo horjeesto siyaasadda Mareykanka haddaba inuu dad musliman ahay ومحي عبردا عن كفائدنا أمان كقاضينا دعددا آد وعجيبك يسوق النبي عليه الصلاة والسلام ويري الحكمة ضالة المؤمن وحكسو حكمة أي كتشرتو أما عبرد كتشرتو وواجب إن نسف عنه إيجنو أن كفائدنا عبردا يا حكمتك كلا صور دحبحنا تكو بعد وحويان سن أنو أركو خيامة شرتي خيامة داس وحي كدحدي جورجا مدارو دحديسة دتكي ودوا حوج ودوا أي خيامي ومريكن كلا شقية أو العقاتي سي مدحوينها أي مريكن كقعنتا وقصاران داس وحي نحسوسين يسا خائن كي وجهري عربتا نيل أورنشري أبو رغال أو أها برجي جاهلية دتكي كسوحري قوم الثمود أي نينكاس وحويا نينكي خائمة عربتو دان ciidankii abraha alxabashi ee yuhuudiga ah tusay wadadii Makka si uu tago Kacbada uu soo dumiyo ninkaas markuu dhinto si xum u dhintay ayaa xabaashiisii xataa carabtu barigii jaahiliyada intay tagaan ay dhagax ku soo tuuri jireen isagoo u noqday tusaale u noqday qof kasto khaa'ina oo diintiisa iyo sharaftiisa daraada lacagta u iibiya
gidaarka China dalka China ku wareegsanay ee cadowga ka ilaalin jiray dhowr jeer ayaa gidaarka la galay oo la jabiyay intaas jeer la galay la jabiyay gidaarkaasna waxa ka dambeysay ciidamada ilaalinaysa ayaa Nairush qaadato khiyaamaysay Delta Force ciidamadan argagixisada ee la dagaalantay Mareykanka ma shaqayn karto la'aanta khaa'imiin ayuunbay la shaqayn karto oo caawinaysa oo informationkii macluumaadkii siinaysa oo u fududaynaysa wax kasta waxaanay ku guuleystaan dalkii Ciraaq 2003 camaliyadii ay u bixiyeen Red Dawn ee lagu qabtay madaxweynaha dalka Ciraaq Saddam Hussein waanay ku guuleysteen Iran oo markasta khaa'imiin bay helayaan lacag ay siinayaan oo caawinaysa dad baa jira adduunka diintooda iyo dalkooda iyo sharaftooda u iibinaya daraada lacag iyo mabda'ooda caruurteena aan barno waan ku rabayno inuu diintu iyo wadanku diintu iyo dalku iyo sharaftu ay tahay waxa ugu qaalisan bin aadan haysto oo loo huraayo dhiig oo loo dhimanayo caruurteena aan barno inay daacad noqdaan oo khaa'inimadana inaanay baran ama aanay ku dhaqmin talabaadan ka faa'iidana macibradan kala soo baxayna dhacdadan waxa weeyaan Mareykanku wuxuu sidan ula dhaqmayaa xoog buu sheeganay oo power buu haystaa iyo hub iyo ciidan iyo cilmi buu haystaa soo dalkaagu nabadgelyo ugu noolaado iyo shacabkaagu waa inaad nabadgelyadaas aad ka difaacdid nabadgelyadu kuma imanayso haddaanad haysanin cilmi iyo gantaalo iyo CID adag iyo mukhaabaraad iyo dad cilmi leh oo dalka ka difaacaya waynaad cilmiga aqoon iyo hub aad haysatid sad naftaada ugu difaaci kartid aad ugu noolaatid nabadgelyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala suurat al-anfal wuxuu yiri wayn janahu lis-silmi fajnah laha sadaqa Allahu al-azim haduu cadawgaagu nabadgelyo u ka dalbado adiguna nabadgelyada qaado laakiin waxa ka horeysa wuxuu yiri bismillaahir rahmaanir rahiim wa'iddu lahum astata'tu min quwwati min ribaat al-khayl turhabuna bihi aduw Allah wa wuxuu yiri u diyaariyay wax kasta akari kartaan hubka lagu dagaalamayo ciidamadii cilmigii aqoontii gantaalii wax kasta u diyaari soo cadawga Ilaahay uu kaaga baqo iyo cadawgaagaba uu kaaga baqo wayna qof kasta ama dal kasta iyo shacab kasta inuu haysto cilmigii awoodii iyo hubkiiba soo cadawga isaga celin karo nabadgelyo ugu noolaan karo cibrada saddexaadan kala soo baxayna dhacdadan waxa weeyaan Delta Force ama ciidamadan Mareykanka ee kala baxday madaxweynaha Venezuela gurigiisa iyadoo Venezuela ay tahay dal la ictiraafsan yahay oo hub haysato ciidamo haysato cilmi iyo aqoon haysata haddana gurigiisa baa laga la dhaxbaxay Delta Force oo awooddaas iyo cilmiga haysata haddana waxay ku fashilmatay ku guuleysan weyday meel yar oo adduunka jira waana hub haysan ciidan haysan waxban aan haysan Gaza way ku guuleysan weyday Gaza waxay joogtay 2 sanadood ay isku dayday inay madaxda Falastiinta ee dagaalkan wada inay soo qabato way kari weyday waxay isku dayday maxaabiistii ee Falastiintu ay ka qaateen Yuhuudda inay soo celiso maxaabiistii Yuhuudda way kari weyday dagaalkii Jabaaliya koobaad iyo Jabaaliyadii labaadba way ka qayb gashay haddana ku fashilmatay dagaalkaas Gaza 2 sanadood ka socday oo ku guuleysan weydo ku fashilmatay haddana nus saac gudahooda ay xukunkii madaxweynihii Venezuela ay riday oo gurigiisa lagala dhaxbaxay isagoo bajaameysa gashan haddad Ilaahay aad ku xiran tahay oo buugiisa iyo sunnada nabigiisa aad haysatid waxa tii ka dadka ugu adag ee ugu bawarka weyn dadka Gaza jooga wadada habeenkana قيام الليل وتاجن صبحنا الصومن قرآن أخريايا حدق إلهي أضجنا هيستا وححسوستان مركزتا عد والبهدي أدونك سجوكات مادو عدو كستهدو سجوكا إمادو هدد إلهي كحران تهاي والدين تادد هيستد إلهي دعابود هيست كوجو أضج بات هاي عدنا كما كاريكرتو تاسو حويان عبردوين كان كلا بحنا دعدنا عجيب كان على دلك فنزويلا إلهي بنكبرين إنه أمدينا يدلك نبا والشرك كستي حمان كستوك إلى اليوم ومع سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.